abaalmarinta Darwin High waa mid ka mid ah abaalmarinada dunida ugu la yaabka badan, waxaana la guddoonsiiyaa dad sameeyay ficillo la yaab leh oo ay ku dheehan tahay axmaqnimo. Dunida waxaa ka dhaca dhacdooyin la yaab leh, waxaana ka mid ah dhacdooyinkan aan kuu soo gudbin doono. Haddaba halkan waxaa kuugu soo gudbin doonaa dhacdooyin ay ku dheehan tahay doqonnimo oo dhacay. Dhacdada koowaad, dhacdadan waxay ka dhacday goob lagu iibiyey shidaalka, kadib markii qof uu gaarigiisa dab ka qabadsiiyey, waxaana halkaas ka dhashay dab aad u weyn oo naftiisa halis geliyey, khasaare badanna u geystay goobtii lagu iibinayay shidaalka. Markii uu badbaaday kadib ayaa la weydiiyey sababta uu u gubay gaariga, wuxuuna ku jawaabay, waxaan ku arkay gaarigayga cayayaan, waxaana rabay inaan gubo cayayaanka, sidaa awgeed dab ayaan ku qabtay. Shaqsiga 2015 wuxuu u tartamay abaalmarinta Darwin High, laakiin ma uusan ku guulaysanin sababtoo ah waxaa jiray dad asaga ka khatarsan. Dhacdada labaad, dhacdadan waxay dhacday kadib markii laba dhalinyaro oo doqomo ah ay isku raaceen barkad lagu dabaasho. Taasi waa iska caadi in la aado barkad lagu dabaasho, laakiin arrinka xusida mudan ayaa ah in barkadda ay ahayd mid maran oo laga guuray. Arrinkaasi ma uusan ka reebin in ay isku tuuraan barkadda. Isla markiiba mid ayaa meesha ku geeriyooday, kan kalena inta loo sii waday cusbitaalka ayuu geeriyooday. Weligaa ma maqashay qof naftiisa u waayay bakayle awgeys? Cajiib! Maalin maalmaha ka mid ah nin lagu magacaabo Stephen Winfrey ayaa ugaarsi tegay, kadibna waa la waayay, taasoo keentay in reerkiisu ka walwalaan oo ay booliska la xiriiraan. Booliska ayaa baadi goobay, kadibna waxaa la helay isagoo god madaxa kula jira, isla markaana geeriyooday. Waxaana la ogaaday inuu rabay inuu godka gudihiisa ka soo saaro bakayle kaga baxsaday, kadibna madaxa ayuu godka la galay. Madaxa ayuu kala soo bixi waayey, isla markaana wuxuu waayay oksijiinka, taasoo keentay inuu geeriyoodo.